18 bilood ee la soo dhaafay dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu waxay isku haysteen hanaanka doorashooyinka muddo dhaafka ah ee la filayay in la qabto bilowgii sanadkan hadda sii galbanaya ilaa hadda dhinacyadu way isku haystaan nooca socodka baabuurka doorashada hanaanka loo marayo kan golaha shacabka iyo habdhaqaaq kastana dood iyo qayle ayaa ka taagan isku haysiga geedi socodka waxa uu soo maray dhowr jiho mar ayay ishayeen madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda federaalka waxa uu qaatay ku dhowaad 180 cisho oo aysan dhinacyadu si wanaagsan xataa u wada hadal ishaysiga iyo wada hadalaanta dhinacyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay abuurtay in baarlamaanku qaato go'aanka muddo kordhinta 2 sano ah taasi waxa ay kaleftay in gudaha caasimadda ay isku hor fadhiistaan ciidamada amniga oo iska soo horjeeda qaarkoodna loo abaabulay habab kala duwan jilayaasha marxaladda ayaa ahaa bilowgii midowga musharaxiinta oo badankoodu ahaa xubno hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka waxaa kadib la gaaray heshiis ku wajahan hanaanka doorashooyinka 21 May ee sanadkan midowgu way ku guulaysteen ka laabashadii muddo kordhin 2 sano ah iyo in doorashada gacmihiisa laga saaro madaxweyne Farmaajo laguna koobo fiila Soomaaliya waxa ay dalbadeen in garwadeenka doorashada uu ahaado ra'iisul wasaare injineer Roble oo ay aaminsanaayeen inuu uga roonaan doono Farmaajo sababaha xilligaasi guusha siyaasadeed ee midowga keenay waxyaabaha sahlay waxaa ka mid ahaa diidmadii muddo kororsiga oo xoogganeyd soo laabashada xukunka militariga Soomaaliya kelmaddaas ayaa noqotay hays aad looga iibiyo dadka Soomaalida laguna dumay ciidan badan Puntland iyo Jubbaland labaduba way ka soo horjeedeen muddo kordhinta dantoodu kuma jirin beesha caalamku ma rabin mana aqbali karin muddo kororsi la sameeyo saddexdaa dhinac iyo shirarkii jaraa'id ee midowgu waxa ay kalifteen in teendhada Afisoni dib loogu laabto ha yeeshee ka laabashadaasi kadib khasaare siyaasadeed ayay la kulmeen dhinacyadu dhammaadkii Agoosto ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyadu waxa ay soo saareen habraac doorasho oo dhabaha u xaaraya sidii ay doonayeen inay u maamulaan doorashada gaar ahaanna tan aqalka sare iyo golaha shacabka degniino badan oo laga bixiyay dib looma eegin midowga musharaxiintu waxay hadda ku dhawaaqeen inaysan sax ahayn sida ay hadda wax ku socdaan doorashada ay qaadici doonaan dhisi doonaan dawlad kale oo gaar ah waxaan eegaynaa warkan ma yahay mid soconaya waqtigan dadka siyaasadda falanqaynaya ee ku foogan dhacdooyinka doorashooyinka Soomaaliya waxa ay soo waaridayaan 7 arrimood oo su'aalo waaweyn ku furaya damaca midowga musharaxiinta iyo sida ay uga marnaan karto dhammaan taageero dhinacyo kala duwan leh oo waqtigan ay u baahan yihiin 1 midowga musharaxiintu gudahooda iskuma raacsana go'aanka in la qaadaco doorashada iskuma raaci doonaan in la soo saaro war-saxaafeed ay dhammaan ku midaysan yihiin waxaa bilaaban doona kala jajabka oo hadda si hoose goor hore ku bilowday 2 aragti ayaa gudaha ka soo baxaysa mid waxa ay leedahay waa in la saxaa khaladaadka doorashada oo lagu dhex soco iyo koox qabta in habraacyada dib loogu laabto oo ay isku yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada isla markaana doorashada la qaadaco waxa hadda la soo saaray golaha shacabka taasi ma aha mid suuragal ah waqtigan 2 kala aaminbaxa midowga musharaxiinta iyo Siciidani in dani yahay musharax hadda wax xulaya ayaa uga dhigan fursad uusan lumi doonin si Farmaajo ama midowga musharaxiintu wax u helaan haddii Abriil loo wada socday la dagaalanka Farmaajo markan Siciidani ayaa saaxadda saaran marka dhankaasi laga fiiriyo midowga musharaxiintu ma haystaan taageero sharci shacab maamul ama mid beesha caalamka ah 3 Abriil sanadkan haddii muddo kororsiga la soo iibgeeyo xukunkii militariga ayaa soo laabanaya hadda dadka lagama iibin karo kursi xildhibaan ayaa saaxiibkay laga boobay ama tartanka ayaa layga reebay iyadoo oo dadweynuhu xasuustaan noocii boob ee dhacay doorashooyinkii hore 2012 oday dhaqameed iska soo qoray qofka uu jeclaysta iyo 2016 oo si cad la isugu boobay kuraasta dowlad goboleedyada 4 ciidankii badbaado qaran mucaaradku ay ku magacaabeen taliyaashoodu badi waa kuraas doon ama dad saameyn ku leh ayaa qaatay kuraas taas ayaana ka dhigan in Saadiq John Ferey Xaadoole Jacfar iyo Gacmadulle aysan mar kale u joojin doonin siyaasiyiin kuraas doon ah oo iyaga danaysan ugu jirin 5 shanta madaxweyne goboleed waa kuwa deegaanadooda xildhibaanadu ka soo baxayaan waxay hore u dejisteen habraac awood siinaya iyaga dhammaan darafyada siyaasaduna way la aqbaleen Madoobe Deni Laftagareen Cali Guudlaawe Qoorqoor
iyo kooxda gobollada waqooyi ee Somalilandba waxay isku waafaqsan yihiin in la boobo kuraasta habraacii ugu dambeeyay aan wax laga bedelin waa jugta ugu culus ee aysan midowga musharaxiintu durba ka kaban doonin 6 dhinaca reer waqooyiga gudahooda waa heshiis markan waana wataan doorashadooda qaylo badan kama taagna haddii uu jiri lahaa isqabad gudahooda ah fursad ayay heli lahaayeen midowga musharaxiintu halkaasna boga reer waqooyiga ayaa la boobayaa waa ay xidhantay ugu dambayn qodobka 7 waa bulshada caalamka oo ah cidda ugu badan ee cadaadista dhinacyada waxay isku raacsan yihiin in la dedejiyo doorashooyinka lana qabto ka hor dhammaadka sanadkan gaar ahaan Diseembar laga baxo marxaladdan qaramada midoobayna ma eegayaan qaladaadka dhacaya aadna uguma nuglaan doonaan waxa ay xoogga saari doonaan in la soo saaro baarlamaanka golaha shacabka sida ku cad warmurtiyoodkoodii ugu dambeeyey dhammaan qodobadani waxa ay muujinayaan doorasho qaadiciddu inaysan ahayn kaar xilligan soconaya shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada shaararka iyo saraawiisha kabaha isberbarka bajaajyada dawooyinka wuxuu faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda